horta taariikh maxaa loo bartaa shalay hadday maantu ma jiri lahayn haddaan shalay jiray shalayna ma jiri lahayn haddaan daraata jirin adiga laftaadu magacaa marka lagu yidhaha hebel hebel aad leedahay waxaad sheegay hebel kalaa dhalay aabbahaad sheegay awowgaad sheegay maxaa u sheegay haddii labadaas aadan aqaanin meelaad ka bilowda meelaa u socoto ma taqaanin ummadduna waa sidoo kale ummadda aabbaheed waa taariikhda shalay awowgeed waa taariikhda ka horeysa haddaadan shalay taariikhdaada iyo tii daraata aqaanin waxaa tahay qof aan aabba iyo hooy magaciisa aqaanin soo u wareeraya yahuudda waxay yidhaaheen ummad haddaad rabta inaad isticmaalsato baabi'i taariikhdooda marka marba hadduu taariikhdiisa xasuusto dibu u naqanaa muqdisho qarniyaalay soo jirtay taariikho muqdisho ka badanna waa jiraan oo gobollada laga helaayo meelo yaryaroo waxaa jira marka taariikhda ay ku harsaneed ilaa xorriyadda waxay ka dambeeyey marba qaybaa la duminaya waliba waqtigii kacaanka meelo badanaa la dumiyey kacaanka kadibna waa lagu sii daray ingiriiska markuu yimidna wuxuu dumiyey taariikhihii dhismooyinka ee talyaaniga isagoo ku xumaynaya taariikhaas marka haddii hadda aad tiraa muqdisho intaas sanay jirtay nin dalxiisaa ku imaana igeygu ku leeyahay aan tagay gurigaana laga dhistaa leedaha marka intii ku aali jirta qofkaa ilis ma jirto adduunyadana dhagax yaroo meel yaal waxaa lagu leeyahay boqor hebel maalin ku fadhiistay dhagaxaan waa la xafiday dhagax sida historiga loo ilaalinayo ayaan waxaan ka qolada turkiga masaajid meel ku yil oo duq oo dhowr kunoo sano jiro daadada ku yimid bir tareena la sameeyey masaajidka dhammaan si geed loo soo talaalay birtaasoo dhammaan kor u soo qaaday waa la jiiday 30 kilomitir meel u jirta meesha oo daadada imaanayna masaajidka soo sidiisii la dhigay intaas waxaa loo sameynaya in la ilaaliyo waxyaabaha dhaqanka ay ummaddu leedahay xamar inta aa xasuusto ilaa 7 taalo oo taariikhiyeed ayaa la burburiyey mar hore waxaa lagu daray dhismooyin kale ee taariikhi ee matalaya adduunyadana waxaa jirta mid guryaha taariikhda lama taabto haddii la taabto ay wax ku dhacaana sidoodii in loo dhiso xamar weyn oo kale haddaa aniga guri badan ku leeyahay ama guri ku leeyahay iga dumo sharciga waxaa waaye guriga sidiisa inaa u dhiso haddana waa aragteen dabaqaa laga dhisana waaba la helmaama suu ahay sharcigaas ayaa la fulin dhismo taariikhiya hadduu adigu aad degantahay oo kaa dumo waa inaad ku celiso siduu ahay